shir jaraa'id oo magaalada Hargeysa ay si wada jir ugu wada qabteen taliyaha guud ee ciidamada booliiska ee Soomaaliland Sareeye Gaas Cabdilaahi Fadaliimaan iyo ku-xigeenkiisa Sareeye Guuta Cabdiraxmaan Liibaan Fooxla ayaa waxay sheegeen ciidamada ammaanka ee Soomaaliland ay gacanta ku soo dhigeen baabuur ay leedahay shirkadda ganacsiga ee Omar isagoona sheegay in raggaasi gacanta lagu dhigay isla markaana sharciga la horkeeni doono sida ugu dhaqsaha badan iyagoona sheegay nimankaasi gacanta ay ciidamada ammaanku ay ku dhigeen abaaro 7 barkii saacadu markay ahayd ayaa geerish ku yaala agagaarka hoteelka gaari xamuula oo waaraada oo lambarkiisu yahay 17560 oo shirkadda Omar leedahay una rarnaa sidayna taarka garaydka lagu laabo ayaa koox burcada oo gaari nooha wata ay gaarigaas oo markaa Krishboog la joogo daroolkuna ka degay halka ay dhaawac u geysteen Krishboogi gaariga ka haysteen xamuulka ciidanka booliisku hawlgal ballaaran ayuu galay iyagoo ka duulaya burcadaasi halkii ay gaariga ula kaceen ciidanka booliiska ee gobolka Daadmareed oo weyne ciidamada booliiska ee Cadaadley ciidamada booliiska ee Samawanaag waxaanu gelinay heegan inay jidadka galaan oo hawlgalka xagga kor kaga yimaadaan halkana waxa ka baxay ciidan booliisa iyo saraakiil hogaaminaysa gaadiid nasiib wanaag kooxda burcada iyo ciidanka booliisku waxay iska heleen meel ilaa 10 kilomitir magaalada Badar Wanaag koonfur ka xigta halkaas waxay sameeyeen kooxda burcada waxooga iska caabina hase yeeshee arigoo Ilaahay mahad celiyo ciidanka booliisku wuxuu ku guuleystay inay gaariga waaraadka ahaa ee rarnaa iyo noohay wateen burcaduba ay gacanta ku dhigaan waa habeen waa garanaysan hawlgal habeen la galay xaaladiisa wax dhibaatana ilaa hadda lama sheegin ama qasaara labadii baabuurna ciidanka booliiska gacanta ku haya ka hor dhici maayo waxaan u sheegayaa dhammaan eedeysanayaasha iyo cid kasto inay nabadgelyada isku daydo inay wax yeesho in sharciga la horgeynaya talaabadagna laga qaadi doono kidisa waa ciidanka booliisku galaan caawa oo ay ku gudanayeen waajibaadkooda saacadu markay 7 ayay ka galeen Hargeysa hawlgalka faahfaahintiisa iyo guusha la gaaray iyo sida ciidanku hawlgaleen iyo dhinaca kale isaguna waxa halkaasi ka hadlay sarkaal sare oo ka socday shirkadda Omar ayaa uga mahad celiyay ciidamada ammaanka ee Soomaaliland siday ugu guuleysteen hawlgalka ay ku soo celinayeen baabuurka leed shirkadooda ee la tilmaamay nimankaasi burcadka ay afduubteen waxaan ahay maareeyaha shirkadda Omar International waxa dhacday in galabta cabaara 7 in baabuur weyn oo xamuula oo nambarkiisu yahay 17560 rag hawaysan ka afduubeen magaalada Hargeysa markii dhacdadaasi dhacday markiiba waxaan wargelinay booliiska iyo ciidanka nabadgelyada howlgal degdeg ah oo ay qaadeen waxay gacanta ku soo dhigeen gaarigii la afduubay taliyaha ciidanka booliiska taliya xigeenka saraakiisha hawsha gashay degdega u gashay sida wanaagsan u gashay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa Cabdiraxmaan Abdilaahi Fantastic Ariel TV Hargeysa.